Sidee loo qoraa soo jeedinta cilmi baarista? Soo jeedinta cilmi baaristu waa dukumiinti sharaxaya qorshahaaga baaritaan ka hor inta aadan bilaabin shaqada dhabta ah. Waa tillaabada ugu horeysa ee aqoonyahan kasto ka bilaabo safarkiisa cilmi baarista. Maxay tahay soo jeedinta cilmi baarista? Waa qorshe qoran oo sharaxaya maxaad baaraysaa, sidee ayaad u baaraysaa iyo sababta ay muhiim u tahay. Soo jeedintu waxaa loo gudbiyaa macallimiin, guddi aqooneed iyo hay'ad maalgelin si ay u qiimeyso in mashruucaadu yahay mid suurtagal ah oo muhiim ah. Maxay tahay ujeedooyinka ugu muhiimsan ee laga leeyahay soo jeedinta cilmi baarista? Soo jeedintu waa in ay caddeysaa su'aasha cilmiyeed ee aad rabtid inaad ka jawaabto, in ay muujisaa aqoonta aad u leedahay mawduuca, in ay sharaxdaa habka iyo farsamooyinka aad adeegsan doonto, iyo in ay tusisaa in mashruucu yahay mid waqti ahaan iyo qarash ahaanba suurtagal ah. Qaybaha ugu muhiimsan ee soo jeedinta: 1. Ciwaanka cilmi baarista waa inuu noqdaa mid cad, kooban oo ka turjumaya mawduuca. 2. Habraaca iyo asalka mawduuca. Sharax sababta mawduucaadu muhiim u yahay iyo xaaladda cilmiyeed ee hadda jirta. 3. Su'aasha iyo yoolka cilmi baarista. Si cad u qeex su'aasha aad ka jawaabaysid. 4. Dulmar cilmigii hore literature review. Soo koob daraasado horey ee mawduucaada la xiriira. 5. Habraaca cilmi baarista. Sharax habka xog ururinta, falanqaynta iyo qalabka aad adeegsanaysid. 6. Jadwal shaqo. Si waqtiga loo qorsheeyo laga bilaabo bilowga ilaa iyo dhammaadka. 7. Tixraac. Qor ilaha aqooneed ee aad adeegsatay. Talooyinka ugu muhiimsan ee soo jeedinta cilmi baarista: u qor si cad oo mug leh. Adeegso af cilmiyeed iyo qaab dhismeed nidaamsan. Hubi in soo jeedintaadu leedahay isku xirnaan iyo kala dambeyn macquul ah. Ugu dambeysna xaqiiji inaad isticmaasho tixraacyo sax ah oo la aqoonsan karo. Ugu dambeyn, soo jeedinta cilmi baaristu waa sida khariirada safarka. Waxay tilmaamaysaa jihada aad qaadi doonto. Haddii ay noqoto mid cad, qorsheysan oo xog ku dhisan, waxay kuu sahlaysaa in mashruucaadu noqdo mid la ansixiyo oo guul ku dhamaada.